ودعو ونبينا صلى الله عليه وسلم أدر دارمي صحابي الجليل كا أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم خليف كيسي كوبات سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. أحبابت أن جعلنا هاي waxaan halkaan maanta kusoo gabdi doonaa insha allah duco weyn duco qayima waa duco oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam u dardaarmay saxaabiga jaliilka amiir muminiin nabigena sal slam khaliifkiisii koowaad sayidina abubakr sidiiq radia allahu canhu ducadaas ka soo fushay sayid اlambiyaa loo dardaarmay sayid الصaxaaba wa sayid الnaas bacd alambiyaa waad garan kartaa markaas qiimaha ee leedahay ayaanu maanta baranaynaa insha allah. sayidina abubakr sidiiq radi allahu canhu oo ahaa saxaabi jaliil ah mar walbana ku dadaalaya khayrka muraadkiisa iyo hadafkiisa uu weyna uu yahay baryada ilaahay iyo alla ka cabsiga ayaa wuxuu nabigeena weydiiyey su-aalo calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yiri rasuulka ilaahayow علمني دعاء أدعو به في صلاتي إبر دعاء إبر أن كد عيسو صلاة دي مركا صلاة أن تكنا صلاة أن كجلو رسولك الله صلى الله عليه وسلم إبر دعاء أن كد عيسو يشك دعاء دي لباري سيدة بكر الصديق مسلمين تقولنا بأطالة هذا سيدة سكبرنا يان سياسة أن مركا لغاية هي إن هذا براتيد هذا رجل تانا سيكوسي داشيد dad aqoon jirina maanta aad baratay insha allahu tacaala kudaashida ku ducaysatid qabuulkeeda waa laisku hubaaye wuxuu nabigu yihi calayh الsalaatu wasalaam qul allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiira walaa yakfir الdunuuba ilaa ant faاkfir lii makfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur الraxiim waxaa tiraahdaa buu yidhi allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiira waxaa la yihahdaa dulman kahiiran riwaayad baa kusoo aroortay dulman kabiirana riwaayad kale ay kusoo aroortay welidaba wuxuu yihi imaam الnawowi radi allahu canhu imaamkii weyne imaam nawowi waxaa haboon in laisku daro labadaba marka oo la yihahdo dulman kahiiran kabiiran oo la yihahdo markaas allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiiran kabiiran walaa yakfir الdunuuba ilaa ant faاkfir lii makfirata min cindik warxamnii inaka anta algafuur الraxiim waa ducaa basiid ah waa duco aada u fudud waa duco gaaban waa duco daqiiqado yar aad ku xifdin kartid markaas waxaa laga baa inaad ku ducaysatid salaada dhexdeed marka salaada atexaadka dhameysid atexaadka ku dartid qeybta dambe oo ducooyinka inaad raacisid ayaa la hubaa ayaa loo baahan yahay maxaa yeele xilligaas oo salaadaha mar qofka tukanayo salaada ducaysa mustajaabo waa iyo marka ka baxaba xilligaas ka dhigo oo ku ducayso oo baro ducada waxay ka kooban tahay qof inuu qirto dembigiisa ictiraafu dunuub qof inuu dembigiisa qirto kadibna ilaahay weydiisto ilahay oo ka dhaafo kadibna ilaahay oo yihahdo ilaah cid kaloo dembi dhaafi karta ma dembi dhaafo ah adigaan ma jirto waxaa ka weyn ma jirto marka allahuma inii dalamtu nafsii ilaahayo waxaan dulmiyey nafsadeeda ayaan dulmiyey dulman kahiiran kabiiran dulmi fara badan oo weyn ayaa nafteyda dulmiyey ilaahayow ilaa qofka dembiga oo galaayo ilahay waxba ka dhibayo naftiisa oo dulminaya macsida oo ku dhaqaaqayo ilahay waxba ka dhibi mayso qofka asaa is dulminayo isaga dhib ku taha isaga la ciqaabay isaga leh lafiisa asaga wax isgaarsiinayo marka ilaahayo nafteeda ayaan dulmiyey dulmi fara badan oo weyn haye walaa yakfiru dunuuba ilaa anta dunuubtana ma dhaafo adiga maahane cid kale oo dunuubta dhaaftaay ma jirto oon adiga ahayn faakfir lii makfirata min cindik ilaahayo ii dhaaf dembi dhaaf agtaada ka ahaaday ilaa ii dhaaf warxamnii ilaahayo ii naxariiso inaka anta algafuur الraxiim ilaahayo adigu waxaa tahay alla dunuubta dhaafo oo naxariisto ayaa tahay ilaahayo dembigii dhaaf. allahu akbar ducadaas marka duco weyn ah aan baranno aan ku dayaalno sida abubakr sidiiq nabiga ka dalbay calayh الsalaatu wasalaam inuu nabiga uu baro duco oo ku duceyso salaadiisa dhexdeeda ducadan ayuu nabigana baray calayh الsalaatu wasalam u soo xulay haddaba annagana waynoo taalaay aan baranno xifdina ku dadaalno saddexna ku duceysana insha allahu tacaala khayratin allah na waafajiyo anaga iyo adinkaba
وبالله التوفيق. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bishaaro bishaaradani waxay ku socotaa dhammaan qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka in markiiska macmuur online uu qaadanayo arday cusub waalid mala ay ubadkaaga oo ku nool dhul qurba cid ku tarbiyadaysa ana ku haye hamoogaanin markiiska macmuur online haddaba markiiskan culumta lagu barto waxa kamid ah xifdinta quraanka kariimka barashada luqadda carabiga تجويد سيرة نبينا صوبا حريص ينبت قليو كركي سهاهاتي أذكار إيو تربية أبتكا هذا باب الشيء هموغان مركز كمعمور أونلاين وكاها قبتيرا يدمان باهيها وحبر الشيء أبتكاغا هذا با وحي فافاهني تاسي ديرنا كلا حديد نمبر هذا شاشة دكاغا موضا